munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Colaad Rooble gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka suxufiyiin Soomaaliyeed iyo xubno kale oo ka socday ururada bulshada munaasabadaasi oo almarnimo iskugu jira كمبيوتر يركض عضد كل جدوبه لجو جدونسيني أفر صحفي أو كم إذا ورياش كهال جلد دلك وعنا كقرأ ورر كسابسن أرمها بالشدة كانوا جول استقيمين سنة كيهرة أي سمايين ورر كصحفيين تقارن كصومالية النسج أو كاشان هي ذا كتر سنة قرامة مدوبة xogeyaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nosage Maxamed Ibrahim Bagistaan oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa sheegay in suxufiyiintan abaalmarinta lagu guddoonsiiyay ay qayb ka yihiin suxufiyiin kale oo ka howlgala gobolada dalka kuwaas oo ku guuleystay qiimeyn sanadkii hore ay sameeyeen ururkan waxa jirta afar saxafi oo Hargeysa maanta lagu siinayo afar lagu siinayo Garowe ee afar Muqdisho ku qaadatay من أفر تاس ترتن قوة فرنا لما كنا يصدق يتوقع بيش أكتوبر على لونجري إلا نوفمبر لحدة دي السعودية لما نوحوا فرنا صحفيين الصوماليات أو حبلة يويلة لما أنتي مارتي أبلاي جريسي أنتي نصيبك وهالشنا مارتي أنتي قارة أيها ترتن سنة كيلو صدى في بلادي سنة كان هذه له مو وانقمن دونا qaar ka mid ah suxufiyiintii la guddoonsiiyay abaalmarinta oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan abaalmarinta la guddoonsiiyay iyo warbixinada ay qoreen magacayga waa Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar waxaa tiftiraa warbaahinta Risaale magaalada Muqdisho runtii waxaan ku guuleystay Somali Media Award waxaan anigu ku tartamay qaybta caruurta iyo dhalinyarada ku tartamay qaybtaasna waan ku guuleystay maanta waxaa la guddoonsiiyay award 2013 ayaa la guddoonsiiyay magacayga waa Maxamed Cabdi Diirshe waxaan wax ka qoray maqaal ku saabsan arrimaha helista adeeg aasaasiga ah gaar ahaan maqaal ku saabsan dawada sida qaldan loo isticmaalo iyo khatarta ka timaada waxaan wareystay dhibanayaal arrintaas ay ku dhacday marka waxa la igu qiimeeyay awoodda iyo baaxadda maqaalkayga runtiina shahaadadan la siiyay iyo agabkan kale la siiyay aad baan ugu faraxsanahay anigu Yuusuf Axmed Abuukar keenan weeye aad baan runtii dareen ahaan u faraxsanahay tartankan runtii aan ka qayb galnay oo wariyaal badan oo Soomaaliyeed ay ka qayb galeen waxaan isleeyahay lama kala karti badneen nasiibka wax saamaxay qof walbana meel gaar buu wax ka arkaa marka runtii waxaan isleeyahay halkii dadka qiimeynta sameynayay ay wax ka arkayeen ayaan ugu dhawaana isleeyahay tanna waxay u noqonaysaa un dhiirigelin wariyaasha Soomaaliyeed dhiirigelin bay u noqonaysaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha guddiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo kale munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in talaabadan ay muujinayso in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay gaareen horumar isagoona dhinaca kale saxafiyiinta ugu baaqay inay sameystaan dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed urur ay ku mideysan yihiin idinkoo isku duuban oo wariyayaal oo wada jira waxaan jeclaan lahaa inaad ururadiina warfaafineed aad samaysataan idinkoo mid ah wiilal iyo gabdho wada jira inay samaystaan anigu tan waxa weeye ereygan waa shakhsigu ii yahay baan filayaa ma aha inaan leeyahay wax fiican ma aha laakiin waxaan leeyahay wada jirka ayaa fiican mudane Cabdullaahi Colaad Rooble wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in arrintaasi ay dhiirigelin u tahay saxafiyiinta Soomaaliyeed oo xilligan ku shaqeeya xaalad adag runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan farxad weyn ay tahay khaasatan qof ahaan iyo ka wasaarad ahaanba sidaad la socotaan wasiirkii safar shaqo dibadda ku maqan yahay wasiir ku-xigeenkina waa idinla joogaa taasi waxay muujinaysaa in wasaaradda ay ka go'an tahay in ay garab istaagto warbaahinta Soomaaliyeed abaalmarin marka la yiraahdo runtii waxaa soo muuqanayso dhiirigelin ayaa meesha ku jirto marka nusuj iyo waxaan lahaa UN-ka hay'adaha UN-ka ee soo qabanqaabiyay munaasabadan qiimaha badan iyo abaalmarintan marar badanna waa sheegaa haddana waa ku celinayaa
abaalmarin markii la yidhaaho waa dhiirigelin. Maxamed Xasan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.